السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أصحابتك وحنا جنالك فيفا صوماليا وحنا لدينا لياهي مركز تاكي جوجتنا الدنكا كجوغا نبطي عافمات كسو دوادا مسلسلكي أفرتا ولال وحنا ما دعلنا يا مركو هوري انت انقو ذكرين كشاكينتا مسلسلك لما انت قربي وسيسي ان انسو قارو تضوبقل اي سديتن تاس وانو ما دعلنا يو لما انت اي سبسكرايبتي انت دمنا waxaan leeyahay fadlan igu caawiya si aan kor u soo aado insha Allah waa kan musalsalkii ku soo dhawaada asxaabay waxaan noo marayaa 212 run ahaantii suusi gabadha la dhahayo ee gaariga lagu dilay qadir lahayd wax badan ayaa la caburiyay laakiin xanqa si walba oo loo daboolo marba daboolka laga qaadayaa taas waa xaqiiq ninka la dhahay kan ee la daba dhigay gabadhan oo dhalay Caakif Abdikool waa wacalkii wuxuu sameeyay iyadoo xaflad lagu haysto gurigii Suusi Umar iyo Daroog Aasiya Uljaan Beek Abikay kulli ay wada joogaan harika ayaa waxa la isweydiinayaa su'aalo ayagoo isxijeysanaya ayaa su'aashu waxay ku soo aadaydaa Suusi waxa weydiinaya Umar markay ay doonayso in ay sheegto dilka qadir dadka dambeeyay ayuu kan wuxuu sameeyaa dhala meel saareed oo ubax ku jiray dhulka ku dhufanaa markii ay dhalada dhacday kadib gabadhi way baxaysaa sorry uu leeyahay gabadhii koray aadi uu ka daba tagaa markii uu ka daba tago wuxuu leeyahay arrintan aan sheegtaa rabta laakiin ugu hadii aad sheegto in dhibaato kaaga imaan doonto gabadhi way iska aamusaysaa markii la soo laabato hawsheeda ay qabsato waxa la weydiinayaa su'aashi dhan kale ayay rogeeda oo waxay ka laabanaysaa sheegida ay sheegi rabtay dilkii qadir dadka dambeeyay run ahaantii markii gabadha ay soo degatay kadib harika ayaa waxay sameynaysaa waxay qaadanaysaa jijin dahab ah oo gabadha qol ugu jirta waxaan arkayo kan maxaa dhici doono